sidee lacag looga sameeyaa internetka soo dhawaada saaxiibayaal waa channelka naga daawanaysaan waa Charles magacaygu waa Maxamed Charles maanta mawduuceena waxa weeye inaan mawduuc ka duwan muuqaaladii hore weeye oo xitaa wax intro ama dhexgelin doona si toos aan rabaa inaan u bilaabo una dhameeyo muuqaalkan marka wuxuu ku saabsan yahay si guud marka koowaad qofku marka uu ku cusub yahay barnaamijkan ama online sida lacagta looga sameeyo wuxuu u baahan yahay sida industry kasta ama meel kasta oo qofku shaqo ama mihnad kasta oo bilaabayo wuxuu u baahan yahay inuu ka helo faahfaahin ama waxyaabaha mataqaanaa uu ka kooban yahay inuu wax ka fahmo marka waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano marka daqiiqadahan kooban inaan dhammaan category-ga ama waxa ay ka kooban tahay shaqadan online-ka inaan wada aragno kadibna si aad marka aad liiska aad waxa aad jeceshahay ama waxa aad ku fiican tahay aad uga dhex baxdid haddaba aan hore u galno marka sidee lacag looga sameeyaa internet horta si guud marka la leeyahay sidee ama lacag online-ka laga sameeyo aad maqlayso laba hab baan kala qaadayna marka in online-ka lacag laga sameeyo iyo in online-ka ganacsi laga sameeyo waa laba waxooda kala duwan way kala duwan yihiin in online-ka lacag laga sameeyo waxyaabo meelaha waxa ka sameyn kartaa online-ka $2 $3 $5 ay aad waxyaabo yar yar aad ka sameyn kartid baa jirta oo reward sites la yiraahdo ama shaqooyin yar yar aad qabanaysaa shaqooyinka yarka marka waxay kugu siinayaan lacag yar oo abaalmarina marka waxaas oo kale waa online-ki lacagta wax ka sameysay laakiin ma aha ganacsi online ah marka annaga muhiimadda waxaan siinayno ama aan rabno inaan kanaalkan uga sheekayno waxay u badan tahay ganacsiga online-ka ah dabcan kuwaas laftirkooda waa ka soo hadli doonaa oo way jiraan dhalinyaro u baahan inay mataqaanaa marka koowaad ay habkaas soo maraan oo ay wuxuun ku helaan laakiin annaga muhiimaddeena waxaan siinaynaa sidee ganacsi online loo dhisaa marka labadaas labada qaab baa kala duwan oo in online-ka lacag laga sameeyo in online-ka ganacsi laga sameeyo laba waxooda kala duwan weeye haddaba marka aan hore u galno 6 hab ay marka ka kooban tahay qaabka online-ka lacagta looga sameeyo waliba si ganacsi ah in marka si ganacsi ahaan loo fikiro oo qaab ganacsi camal ah inaad online-ka aad ka dhigan wax mataqaanaa lacag aad inta ka samayso haddana aad ka tegayso haddana aad ka samayso waxaan haddii sida mindset-kaagu sida ganacsi in aad ka shaqeynaysid markaa ka dhigatid baad wax ka qaban kartaa ana ka qabsan kartaa haddaba 6 hab ugu waaweyn iyo mid kasta waxa hoos yimaada baan hore u gelaynaa 6 hab ugu horeeya يعني ugu waaweyn mid kasta waxa hoos yimaada gadaal baan ku arki doonaa laakiin 6 hab aan aragno aan sharax content creation oo ah qodobka koowaad waxa weeye inaad macluumaad abuurto sida qoraal maqal muuqaal sawir iyo wixii la mid ah adigoo si toos ah u iibinaya ama si dadban adigoo xayeysiimaha lacag uga sameynaya inta maxaa laga wadaa waxaad abuuraysaa wax ama qoraal ama maqal ha noqoto ama muuqaal ha noqoto ama sawir ha noqoto content ba abuuraysaa content-ga abuuraysid marka si toos ah u iibinaysaa oo macaamiisha ba ka iibinaysaa ama waxaad sameynaysaa waa soo publish karaynaysaa oo xayeysiimaha lacag uga sameynaysaa waan arki doonaa gadaal baan ku arki doonaa qodobka labaad affiliate marketing oo ah in aad suuqayso badeeco ama adeeg aadan adigu lahayn kadibna aad commission ka hesho marka alaabta la iibsado alaabta marka la iibsado ama in iib kaliya ma ahan waxaa jira ama dad rukun ah hadaad u keentay oo kale hadba sida heshiisku yahay ku xiranta oo waxaa jira waxa la yiraahdo CPA ama oo aan ahayn yani cancel-ka cost per action baa la yiraahdaa oo waa model ka mid affiliate marketing ka mid ah waxa qodobka saddexaad ah freelancing oo ah habka saddexaad freelancing marka waxa weeye inaad xirfadaada si xor ah u adeegtid dad dunida taafeehda kala jooga oo clients ah adigoo aan cidna si gaar ah u shaqayn marka boss ma lihid shaqada xirfada aad lahayd baa waxa la tagaysaa meel online-ka ah oo la isugu yimaado oo xirfadaada uga shaqaysanaysa gadaal baan ku arki doonaa markaan qodobka gaarno saddexaad qodobka afraad e-commerce waxa weeye inaad dukaan ama suuq online ah aad ka dhex furato internetka si aad badeeco ama adeeg ugu iibsid faahfaahinta gadaal baan ku arki doonaa trading and investing qodobka shanaad inaad internetka dhexdiisa ka samayso baayac mushtari iyo maalgashi
adigoo adeegsanaya goobaha lagu kala bedesho agabyada qiimaha maaliyadeed leh. iyadana dib baan faahfaahinta ka arkaysaa. saas oo ah model la yiraahdo waxa loo soo gaabiyay software as a service, inaad dhisto software adeeg bixiye ah oo aad kiro ka qaado macaamiisha ama aad bilaash ka dhigto adigoo xayeysiimaha lacag uga sameynaya. taasna waa qodobka u dambeeya lixaad weeye. haddaba marka aan faahfaahinta galno, qodobka marka content creation ka ku bilaabana. content creation waxa weeye waxaan soo qaadanay marka ilaa 6 nooc oo aad u sameyn karto. kan koowaad waxa weeye YouTube channel waa taqaanaan channel YouTube sameynaysa kadibna istiraatiijiyada badan buu leeyahay, mowduucyo badan buu leeyahay, niches baa la yiraahdaa, mowduucyo badan baad ka hadli kartaa. mid kasta marka ilaa hadda muuqaalada u dambeeyay maalmihi dhaweyta aan soo dhigay oo aan soo gelinay waxay u badnaayeen istiraatiijiyad kamid ah YouTube kasta lacag looga sameeyo. marka way tira badan tahay. blogging oo kale isna waxa weeye waa qaabka labaad oo content creation loo sameyn karo. website baa sameynaysaa, waxa soo gelinaysaa maqaaladaas hadhow waxaad ku furaysaa xayeysiimaha Google oo sida YouTube oo kale baa blogging kana lacagta looga sameeyaa. waxa sameyn kartaa online course. waxa laga yaabaa inaad ama wax uun taqaanid, waxa aad taqaanid baa marka waxa soo sameynaysaa course ahaan soo diyaarinaysaa. course ahaan marka soo diyaarsan marka waxaad ku gadaysaa platforms baad ku dhex gadaysaa sida suuqyada koorsooyinka lagu iibiyo sida Udemy oo kale, ama website baa u dhisaysaa caadi oo WordPress ah. ama waxaad tagaysaa platforms course platform la yiraahdo lagu soo sameeyo oo koorsooyinka inta soo gelisid iyagu wixii oo dhan hore u diyaarsan yihiin sida Thinkfitch iyo Teachable kuwaas oo kale. marka waxaan faahfaahinta mid baan u arki doonaa oo channelkan wax kala u abuuraa. waxa uu abuuran yahay in waxyaabahan lagu faahfaahiyo oo mid kasta aan toolska iyo waxyaabaha aad isticmaali doontid aan meeshan ku soo bandhigno. dabcan boogiina haddii aad aragtay ama akhrisatay waxa jira boog aan ka qoray mowduucyadan iyagu faahfaahsan 140 boog ah af Soomaali ku qoran oo ebook ah. marka aan hore u sii soconno qodobka afraad, waxa sameyn kartaa ebook. book baad qoraysaa, booga markaa qortid waxaad ku dhex iibinaysaa marka online. waa nooc content creation kamid ah. waxaad sameynaysaa podcast marka waa idaacad casri ah oo kala la oran karaa. waa cod kaliya laakiin codkaas waxa weeye meelo waxa jira lagu soo daayo oo laga dhageysto. codkaas marka saas oo kale wuxuu leeyahay qaab looga sameeyo online ka mataqaan xayeysiin uu leeyahay lagu soo furo ama YouTube ahaan baa hadhow codkii isaga muuqaal ahaan u soo bedeli kartaa. booga si fiican baa kol lagu faahfaahiyay, muuqaalana waa ka soo sameyn doonaa podcastiga. photography oo kale jira oo asoo sameyn kadib marka sawirada iyo waxa aad ku fiican tahay waxa sameynaysaa sawirada markaa sameysidna waxa jira meel laga aad ku iibin kartid baa jira oo Shutterstock oo kale iyo iStock iyo tira badan yihiin. meel waxa jira sawirada lagu iibiyo oo adigu dadka hadhow isticmaali doona contentiga raba inay sameeyaan oo kale baa ka iibsanaya maadaama adiga ay ku laysan tahay. marka waa qaab kamid ah qaabka content creation loo sameeyo. qodobkan marka waa tira badan yahay ilaa 6daas aan ka soo qaadanay, mid baan u faahfaahin doonaa. qodobka labaad, affiliate marketing waxa weeye in alaab aadan adigu lahayn oo badeeco aadan lahayn ama adeeg aadan lahayn aad suuqayso kadibna aad commission ka hesho marka la iibsado. afartaan aan ka soo qaadanayna marka. waxa sameyn kartaa marka affiliate blogger wax la yiraahdo. blog aan soo aragnay hadda oo ahaa website aad ku qoraysid maqaalo aad ku soo daabacaysid ama aad wax uga helisid baad furaysaa. website-kaas marka waxa uga hadlaysaa waxyaabo affiliate soo gelinaysa marka linkiyo. affiliate marka waa link lagu soo siinayo. linkigaana alaab ku jirta baad adigu ka hadlaysaa. alaabta marka linkiga lagu dhufto alaabta la iibsado commission kaaga baa sax ku helaysaa. marka affiliate blogger baa la yiraahdaa qaabkaas. waa istiraatiijiyad kamid ah affiliate marketing. waxa kale oo kamid ah affiliate YouTuber baad noqon kartaa. YouTube-ka waxaad uga hadli kartaa ama product review baa sameynaysaa ama alaab baad ka hadlaysaa ama software baa ka hadlaysaa wuxuun baa ka hadlaysaa affiliate leh oo linkigeeda aad heli kartid. kadibna linkiga waxaad dhigaysaa description-ka. affiliate store baa jira. waxaad soo furaysaa website caadi oo e-commerce ah, sameysanaysaa store ah. kadibna
waxaa soo qaadanaysaa alaab caadiya oo tusaale ahaan oo kale Amazon oo kale alaabtaa labaad ku taxaysaa kadibna markii la iibsado commission baa ku leedahay maadaama ay affiliate yihiin waxaa samayn kartaa affiliate funnel baad soo samaynaysaa funnelku marka waxa weeye wax qaabka duwaalada iibka baa la yiraahdaa oo waa website iyo hal bog oo isku waxa weeye kala koreeya marka yani sales page oo kale waxaa jira meel mataqaana emailada ay ku qabsanaysid oo kale adu muuqaal u gaaran ka soo samayn doona funnelka wax laga wado marka affiliate funnels baa samaysan kartaa oo adoon mataqaana blogger iyo qoraalka tirada badan iyo waxa aad u baahan website weyn aad samaystid affiliate funnels baa samaysan kartaa marka afartan istaraatiijiyood baa ugu caansan qaabka affiliate marketing loo sameeyo qodobka saddexaad freelancing oo ah in shaqaalanimada xorta ama si xor ah inaad u shaqaysatid marka laba hab baa ugu caansan oo aad samayn kartaa inaad freelancing marketplaces aad tagtid oo sida Upwork iyo Fiverr oo kale iyo meelaha suuqa isugu yimaadaan dadka shaqada raba in loo qabto iyo dadka freelancerka inaad tagtid kadibna aad xirfadaada la tagtid xirfadaada marka waxaa laga yaabaa inaad graphic designer tahay ama editing ka taqaanid ama aad web designer aad samayn kartid kadib waxaad heli doontaa dad kuu baahan oo doonaya in shaqada loo qabto kadib halkaas shaqada uu qabanaysa marka client baad la shaqaysanaysaa adduunka meesha doonayaan ka joogeen adiguna meesha adduunka adiga ka jooga la shaqayn kartaa cid gaar ah iyo mataqaana shaqaale u noqonaysid ma jiraan freelancer website baa samaysan kartaa marka oo adiga mid ku gaar aad samaysan kartaa portfolio ah kadibna website-kaas laga soo raacayo adeegyada aad ku bixin kartaa labada hab marka waa samayn kartaa marka kan dambe waxa samayn kartaa marka lagu soo barto waa macquul ah oo freelancer weyn ay noqotid baa website ku gaar samaysan kartaa marka labada istaraatiijiyood baa la maraa waliba freelancerada waaweyn marka dambe waxay noqdaan shirkad caadi oo website yani magac gaar ah oo waxay noqdaan shirkad iskeeda freelancer kala marka shaqaaleysiinaysa afar e-commerce toddobadan istaraatiijiyadood baa hoos timaada oo aan arkayno waxa samayn kartaa marka online store baa furi kartaa online e-commerce horta waxa weeye sidoo ahaanba inaad meherad online aad furtid meherad yani alaab ku taxan tahay alaabtaas aad ku iibisid marka online store baa furi kartaa oo ah store caadi oo online ah oo ama local ha ahaado ama mid caadi international oo dunida dhan ay ka iibisid alaabta ha noqoto waa website marka qaybkiisa e-commerce yahay technical ahaan online market baa samayn kartaa suuq caadi ah oo online ah oo yani ay isugu yimaadaan dad alaab suppliers oo alaab hayo iyo dad mataqaana macaamiila waxaa samayn kartaa Amazon FBA model la yiraahdo oo kamid ah qaabkan website-yadan storeska kamid ah marka Amazon baa la shaqaysanaysaa shirkad tusaale ahaan oo kale China ku taala oo manufacturer warshad ah baa alaab ku samaynaysa kadibna Amazon baa ku soo qaadaysa warehouse-yo Mareykanka ku yaal Amazon yaallo kala ku dhex iibinaysa marka waxaas oo dhan shaqada Amazon baa ku dhex qabanaysa Amazon FBA baa la yiraahdaa dropshipping baa jira wax la yiraahdo oo alaab adigu aadan lahayn baa soo qaadanaysa marka soo qaadatid dukaankaaga ku taxanaysa online store-ka ku ahaa kadib marka ku taxatid dukaankaaga alaabtaas qiimaha saaranaysa qiimihii awal ay joogtay qiimo aan ahayn baa saaranaysa kadib hadhow marka la iibsado qiimihii ku dheerigahay ku saarnaanaada iskale qofkii alaabta ka soo qaadatay oo shirkadda awal iska lahayd baa intii kala qaadanaysa marka badanaa waxaa lagu sameeyaa Shopify oo kala kamid ah meel lagu sameeyo sidoo kale online store caadi adigu waa leedahay waa ku samayn kartaa drop surfacing baa jira drop surfacing marka dropshipping-ka oo adeeg ah weeye dropshipping marka waa product kana waa adeeg marka adeeg adigu aadan qaban karin baa leedahay waa qabanaya kadib dadkii qaban lahaa hadhow waxa wiilaysa oo shaqada qabanaya adigu marka adaa dadka la heshiinaya macaamiisha marka la heshiisid marka lacagtii intii dheeriga ahayd baa siinaysa oo baad ka qaad yani la haraysa intii kale ay ku bixinayeen service-kana xagga u wareegaysa marka waa qaab noocaas oo middleman labadanba marka waa middleman waxaan dhan baa middleman bay badan yihiin affiliate store baa samaysan kartaa affiliate store marka waxa weeye xaggana waa ku soo aragnaa affiliate xaggan hadda waa ku jira sababta marka xaggan ugu jira waxa weeye maadaama store yahay oo uu website e-commerce yahay wax halkan saas aan soo galin marka affiliate weeye oo yani alaab adigu aadan lahayn bay iibinaysaa oo affiliate aad ka tahay
print on demand baa jira. Print on demand marka waxa weeye waa يعني design ba waxa design garaynaysaa alaab design-kii baad diyaarsanaysaa marka tusaale ahaan oo kale t-shirt iyo kala design garaynaysaa ama alaab adu nooca baad ama koob baad design garaynaysaa shay baad item baad design garaynaysaa marka design garaysid baad waxa samaynaysaa inaad suuq qaysid marka company marka waxa jira print on demand ka lagu shaqaysto company-gaas marka iska diiwaan gelinaysaa design-kaaga waxa weeye ku mataqaana ka list garaynaysaa kadibna sidaas aad u suuqeynaysaa markii alaabta marka la iibsado la soo dalbado on demand marka saa loo soo dalbado shirkadii way ku samaynaysaa marka alaabti design-kaaga iyo waxa loo bedelayaa inuu si runa loo sameeyo oo la manufacture galay markaas la iibinayaa kadibna lacagta adigu asaaratay baad sidaa ku helaysaa inta kalena waxa weeye shirkadii iskala ku samaysay baa qaadanaysa qaab marka heshiis noocaas oo kale way model noocaas waxaan dhin muuqaalo u gaar ah mid kasta ka samayn doonaa qodobka shanaad trading and investing oo ah baayac mushtarka iyo maalgashiga la yiraahdaa trading and investing marka haddaan soo koobo shantan waxyaabood baa laga trade gareeya ama la invest gareeya waxa weeye currency oo ah lacagta waa forex-ka cryptocurrency oo lacagtan cryptocurrency la yiraahdo muuqaalo gaar ah ka samayn doona kulay waa lacag program ah commodity oo kamid ah badeeco alaabaha waxa weeye qiimaha leh maaliyadeed sida dahabka oo kale iyo silverka iyo waxyaabahaas commodity kan soo gelaya stock waa saamiyadii shirkadaha waaweyn saamiyadoodii indices oo ah waxa weeye saamiyo la isku cufay ama mataqaanaa ama company tiro badan oo kale oo la isu geeyay saamigoodii laga dhigay hal xabo performance-gooda lagu cabirayo marka waxaan dadka mataqaanaa dhex galay tusaale ahaan oo kale forex-ka iyo waxyaabahan cryptocurrency-ga way fahmayaan dadka mataqaanaa saas oo kale finance-ga maadada la yiraahdana wax uga bilaabayeen iyaguna way fahmayaan marka qofkii marka aan wali hore ay ku cusub tahay yani muuqaalaan ka soo samayn doona qaabka loo sameeyo waxyaabahan iyo waxay kala yihiin qodobka lixaad oo dambeeya waxa la yiraahdaa modelka u dambeeya waxa la yiraahdaa SaaS toddobadan tusaale ka soo qaadanay ma tiro badan marka SaaS marka software as a service weeye software as a service marka waxa samayn kara qof developer ah oo programming ka yaqaan language-ka oo mataqaana asagu dhisi kara software ama qof yani software-ki soo iibsan kara marka way jirtaa qaab software diyaarsan oo scriptive software oo diyaarsan baa soo iibsan kartaa kadibna online ka ku host garaynaysaa shaqadiina saasaad mataqaanaa dadka subscription uga qaadaysaa marka waa qaab yani software baa dhisaysa software-ka dhisaysid marka waa qaab dadka adeeg u qabanaya ama baahi dadka customerska ay waxbuu ka caawinaya waxa uu ka caawinaya marka darteed bay lacagta u bixinayaan waxyaabahana marka ka mid ah content management systems oo kala ka mid ah software-da la isku yiraahdo content management system oo yani content-ga lagu manage kareeyo accounting softwares oo kala ka mid ah sida QuickBooks oo kala iyo project management softwares ka mid ah Google Chrome extensions ka mid ah WordPress plugins ka mid ah payment gateways ka mid ah sida Stripe iyo ToCheckout iyo e-commerce platforms ka mid ah sida Shopify oo kala waxyaabaha dhan marka SaaS-ka waa company qofkii yani sameeya oo macnaha milyan dollar ka sameeynaya maadaama uu company yani intaasoo ay ku soo xirmayaan macaamiil hadda Shopify oo kale iyo ToCheckout iyo Stripe iyo waa company aad u waaweyn oo ciddii samaysay ay lacag aan caadi ahayn ka sameynayaan waxa laga yaabaa tusaale oo kale shaqooyin search engine optimization tools oo kala sameynaysa SEO lacag aan caadi ahayn baa marka ciddii samaysay ama taqaan entrepreneur-kii abuuray uu ka sameynaya marka SaaS-ku wuxuu ka kooban yahay company weyn oo noqon kara Google Chrome extension yarana uu noqon kara isagoo tiro badan waxay heli kartaa internet-ka ka buuxa oo mataqaana script-kiisa diyaarsan yahay tusaale ahaan oo kale YouTube video downloader oo kale hadda waa toolka marka waa SaaS model ahaan SaaS u diyaarsan yahay qaabka SaaS-ka uu sameeyay waa software as a service marka SaaS yani mawduucyo u gaar ah muuqaalo u gaar ah ka soo samayn doonaa
lixdaas habba waxa weeye waaweyn online-ka qaabka lacagta looga sameeyo. lixda hab marka mid baan u dul istaagi doonaa. Playlist baan u samayn doonaa mid kasta. muuqaalana waan ka soo sameynaa tiro badan. sidoo kale waxaa muhiim ah inaad la socotaan waxaan muuqaal ka soo samayn doonaa qaabka marka loo suuqeeyo waxaan. kani waa waxyaabihii lacagta laga sameeyay. marka waxyaabaha lacagta laga sameeyay si lacag looga sameeyo waa in la suuqeeyo. si loo suuqeeyo marka waxa loo baahan yahay digital marketing wax la yiraahdo. digital marketing marka muuqaal sidaan oo kale faahfaahsan baan ka soo samayn doonaa waxyaabaha hoosteeda iyo suu yahay. channelka marka hadaad yani muuqaalka horta like saar hadaad ka heshay sidoo kale channelka subscribe saara waxa samaysaa faalladaadana wax nagula wadaagtaa hoos nagula wadaag waana mahadsantiin.